waxaa ku sheegayaa 4 waxyaalood oo laga helo qofka taajirka ah laga helo qofka faqiirka. midda koowaad, qofka taajirka ah caajis loo maaha, waa mid firfircoon haddana caajis loo ahayn. marwab wuxuu sameeyaa exercise oo sameeyaa refreshment oo qaataa waxyaalo badan oo caajis kaga baxo ayaa jirta ayuu sameeyaa. midda labaad, qofka taajirka ah biilow maaha. qofka taajirka ah biilow ma aha halka qofka faqiirka oo biilow ah. qofka taajirka ah waxaa laga yaabaa bee inuu sheego inuu qofku badbaadiyo, laakiin nafsad ahaantiis been ma sheego. midda saddexaad, qofka taajirka ah inuu dhar gato waxa ay ku qaadataa 1 sano iyo 2 sano, halka faqiirka ay ku qaadato isbuuc ama 1 bil inuu dhar gato. midda afaraad, qofka taajirka ah waqtigiisa maalayacni kuma dilo. haddii uu waqtiga uu helo waxbuu akhristaa ama waxbuu dhegaystaa ama waxyaalo oo isla nafsadiisa anfacaya ayuu sameeyaa, halka qofka faqiirka ah uu sameeyo waqtigiisa inuu dilo ama inuu seexdo ama inuu ciyaaro ama inuu meelahaas warwareegada fadhi ku dhirar fadhiisto.